gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Somaliland Professor Aadan Xaaji Cali ayaa saaka degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley u kala diray kooxo ka kooban garsoorayaal, qareeno iyo xeeraaliyaal oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa gobolka Gabiley. Safarkani oo loogu magac daray sahanka cadaaladda ayay ku soo mareen deegaano ka tirsan gobolka oo ay ku soo dhageysteen kuna soo garnaqeen dacwado iyo cabashooyin dhinaca cadaaladda oo ay qabaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi. Garsoore Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan ayaa sheegay inay sii wadayaan sahankani cadaaladda isla markaasina ay tagayaan goob kasta oo ay cabasho ka jirto, isla markaasina ay ka garnaqeen dacwado aan hore go'aan looga gaarin. Maxkamada Sare ee Jamhuuriyadda Somaliland looga fududeeyo waxa ilaa saaka ilaa maanta waxaanu gaafuriinay gobolkan aan ugu tala galnay in dadweynuhu ay ka faa'iideystaan adeega garsoorka iyo helidda garsoorka oo geedaha hoostooda iyo xerooyinkooga iyo beerahooga loogu yimaado oo si fiican garto loogu qaado. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay dadka deegaanadaasi ku dhaqan ee loogu tagay guryahooga oo sheegay inay tahay markii koobaad ee cadaaladda loogu keeno guryahooga. bari waxa iga xiga wadada lay baday tagta yaa iga xigta oo reeraa degan oo wadana marta. wafdigani ayaa safarkooda ku soo maray deegaano ay ka mid yihiin Geed Ballaadh, Kalabaydh, Idanka Deerayaanka, Ceel Baxay, Botor, Guuleed. Ali Ibraahim Kacse, Sab TV, gobolka Gabiley.